bish way dhamaatay faa'iidana ma hayo ganacsigu shaqaalaha mushaharkiisina waa la rabaa ganacsato fara badan waxay shaqaaleysiiyaan iyagoo ogeyn in ganacsigoodu uu awoodi karo in uu bixin karo mushaharka shaqaalaha balse mushkiladu ma ahan in mushahar uu awoodi waayo ganacsigu mushkiladu waxa weeyaan in ganacsado uusan u arkayn kharashaad waana kharashaad joogto ah ama faa'iido samee ama ha sameeynin kaba soo qaad bishan waxaad samaysay $5,000 balse marka laga jaro kharashaadkii sida kiradii leylkii biyihii deemihii hore ee lagu lahaa waxa soo haray male haddana weli kaada waxa linaga sugayaa mushaharkii markaan waxa dhacda in mulkiiluhu uu meel ka xaliyo deyn kalena uu soo qaato hadda mushaharkii ayaa deyn ku guday balse dhibaatada ugu weyn ganacsigii ayaa deyn aad sii gelisay shaqaale laguma qaado rajada ah in iib aad samayn doonto bisha cusub tanina waa mushkiladda haysta ganacsato fara badan xasuusnow haddii bishan aad badbaado bisha xigta qorshe cad u samee ganacsigaaga oo ogow awoodda uu leeyahay in uu bixin karayo kabacdina taa ku sale adigoo nidaamkaaga dib u fiirinayo xogta uu ku siinayo